ma jeceshaa inaad gaartid guushaada ma jeceshaa inaad goolka aad rabtid mustaqbalka inaad gaartid ma rabtaa inaad noqotid qof guuleystay oo horumaray waxa jirta marka videogan jecel inaan ku sheego afar cadow ee guusha ay leedahay oo loo baahan yahay inaad adiga iska ilaalisid saad u gaartid guushaada iyo horumarka aad rajaynaysid inaad gaartid that's coming up daawasho wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دو مر لوادي مرز دحدة جمسي برودكشن وولالك هذا حمزة وما أنت وحنكون وذا فيديو يرى أو كدوان فيديو هذا هروسة من جرني فيديو جوا فيديو الله تلينا أو كل تلنا يا مكوش شيء قابو أتكو جاري كرتجوش هذا أما دريم كهذا هذا تقف نقول عصب أو جنرال كان كوع عصب بحن جام فرن يقلبي فرن كوسو دوينا إن أصلا بيرتي وسبسكرايب سال جنرال كان محسو حنسوق لي فيديو أو شرح يا قاب كلو دو فيديو هذا يفيلم هذا إيو وحيابك oo talooyin iyo waana iyo waxaan dadka aan asxaabteeda ama walaalahayga daawanay aan u faa'iideyn karo channelkan wax kala ma aha waa in dad wax loo faa'iideeyo ama aan ka faa'iideystaa ka haduu rabo inuu guuleysto ama uu guushiisa ka mir dhaliyo wuxuu u baahan yahay marka ugu horeyso wax walba intuu sameeyo inuu nafsadiisa ku kalsoon yahay una aaminsan yahay guushan ama waxaan uu rajaynayo inuu ku guuleysto hadaan u maana cadawga goowaad ee guusha ay leedahay waa qofka inuu ka shakiyo awoodihiisa oo alla siiyay qof walba ilaahay si gaar buu abuuray dadka isku wada mid ma aha qof meel buu ku fiicaya meelna uu ku xun yahay meelna uu ka dhisay meelna uu ka liitaa qofka waa inuu isbartaa wuxuu asigi u yahay sidoo u gaaro ama uu ogaado awooduhu alla siiyay oo dabiicigu ah taasi oo caawinayso inuu waxyaabo badan u fujiso adoo hadaad ka shakisid awoodu alla ku siiyay iyo awoodaha gaar ku ah aad shaki ka gasho ama doubt ka gasho hadhow waxa kugu adkaanaysa inaad nafsadaada motivate gareysid ama aad goolka rabtid inaad gaartid oo ay ka hor istaajinayso shakiga marka waxaad ku jooji kartaa inaad nafsadaada ku kalsoonaatid oo aalana aad tala saartid aadna hore u socotid aad waxaad rabtid aad wadid adoonan shaki iyo su'aalo nafsadaada ka weydiin tan labaad waxa weeye qof walba marka adduunyada ku nool waxa jirta meel ama area oo la qabsaday oo ah comfort oo ku dareemayo nabad iyo naxariis iyo maxalla Allah musta'an raaxo oo soo ku dareemin cabsi wax kale meeshaasna waxa la xeeradaas waxa la comfort zone waxay noqon kartaa meesha ka shaqeysid guriga degantahay xaafadda degantahay area ku nooshahay areas wax ka baxsan markaad u baxdid nafsadu waxay dareemaysaa xoogaa khalkhal yar ama cabsi yar ee soo galayso nafsadu waxay tagtay meel aan hore u baran ama hore u qabsan marka inaad comfort zone-ka ku jirtid oo aadan ka bixin waxay kugu dhalinaysaa inaadan horumar gaarin oo aad meeshaas shalay joogtay aadan ka gudbin maanta taasina waxaad u baahan tahay inaad bedeshid oo aad ka baxdid comfort zone-kaaga aad nafsadaada challenge gareysid aad meel cusub aad baratid dad cusub aad qabatid waxyaabo aadan qaban jirin shalay saad u gaartid waxyaabo aadan hore u ama aad u haysanin tan saddexaad oo maano waa dib u dhigashadu ama shaqo ama hool aad dib u dhigatid ma marka qaarkood anaaba sameeyaba waxaan aniga nafsadeeda aan kala tacaalo aan rabo inaan hadda ka hormariyo aan wado mar walbo laakiin dib u dhigashada ama inaan barnaamij ama shaqo dib u dhigatid waxa ay kugu ziyaadinaysaa culayskii ku taagnaa maanta oo aad loo baahnaa inaad samaysid inuu dib kugu dhaco oo kugu noqdo mid laabma ama mid ku saddexooba taasoo ka joojinaysa inaad hore u socotay ama hore u dhaqaaqad ama aad gaartay guusha aan lahayd marka saad dib u dhiganba barnaamijka hadda gacanta ku haysamee idda hadda haysamee wixii aad hadda u baahan tahay inaad samaysaa ku gaartay guushaada samee waxba dib ha u dhigin just last but not least teedana afraad ee noogu dambaysa waxay noqonaysaa ego ama isla weynida sidaan ognahay isla weynidu waa mid aan fiicneen oo diiniyan ba aan u fiicneen marka qofka isla weyn ama ego-giisa uu aad iyo aad u weyn yahay ma gaaro horumarkan lagu sheegay maaha mid hal qof inuu bilaabo hal qof gaari karo waxa lagu gaaro waa dad iskaashaday oo gacmo isqabsaday oo horay wada socday oo midka gala gacanta qabtay hadda waxa soo baxeen dad badan oo u mooday inay horumarka tahay mid oo hal qof kaliya uu qabsan karo ama shakhsi kaliya uu gaari karo Barlis hal bir laguma dhisin hal qofna ma dhisin waxa dhisay waa dad badan anagana as Soomaali ahaan waxa u baahanahay inaan ogaano macnaha ay leedahay inaan dadka ay support gareeyaan oo qofka kale uu support gareeyo aduu ade khasab ma qofkina lacag ku support gareysid waxa ku support gareyn kartaa inaad barnaamijkiis ku dhiirigelisid inaad Allah musa ideoyin siisid Allah musa inaad la shirgelisid wixii uu sameeyo qofka inuu isla han weynaado uu iska dhaadhiciyo inuu dadka kale wax yar dheeriya ama far dheeriya haduu uusan waxba dheereenba taasina ma aha mid adiga ku keenaysa guul ama
qofka ka dambe u keenaysa dib laakiin waxa kaliya ay ku keenayso adiga waxay tahay inaad dib isku dhigtid meesha shala gaar lahayd aad gaartid horumarka lagu sheegay asalkiisa waxa weeye in la iscaawiyo la isgarab istaago si maanta qofka haduu gaaro qofka kale uu soo garab qabto si uu gaaro meeshiisa walaalkiisa uu gaaray laakiin hadana anaga Soomaali erigan la dhahay supporting ina dadka iscaawiyo ama isgarab istaagaan waxa u naqaanaaba inay tahay baryo Soomaaliya aan wada gacmaha wada qabsano aan iscaawino anaga isla anagii ah dadkii waa isla anagii marka support hada anaga isin qof kale na siinayo ma laha so let's support each other if your brother is doing something support him follow him share with him do something that your brother can get benefit from and taasa sameeysan adiga kugu soo noqonaysa markaas intaas baan ku soo koobiyaa videogan yaraa oo ahaa la talin iyo talooyin aan bixiyo waxaana halkan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadino waa inoo video xiga maca salaama nabadino nabadino ana la sameystano